السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قالقة كسو دوادا تشيتشز كيتشن maanta waxaan rabaa inaan kariyo baradho oo cheese gudaha ugu jira mise jubna gudaha ugu jira saa u taqaanidba marka waxaan u baahanahay maqaadiirtana waxaan u baahanahay galleyda hadaa rabtid isagoo soo iibsan kartaa waana karkarin kartaa waxaan u baahanahay koob iyo bar oo galleyda hadaad ka soo iibsatid supermarketkana si fiican waa inaad u dhaqdaa waxaan haysanaa maxaa la jubno mise cheese-kan oo saan loo googooyaan u baahannahay waxaan u baahannahay hal baradho oo dhexe yani aan yareen aanan weyneyn halkan waxaan ku haysanaa waraango 3 malqacadood kuwan waaweyn oo cuntada lagu cuno halkan waxaan ku haysanaa basasha cagaaran oo 2 dhaadheer ah halkan waxaa noo yaala kabsar caleen oo yar kabsar caleen yar iyo hal tuumaan u baahannahay iyo waxaan u baahannahay halkan wax yar zactar oo the time ay dhahaan cadaanka ku yiraahdaan carabtan waxay dhahaan zactar halkan waxaan ku haysanaa jubno oo fresh ah halkan waxaan ku haysanaa parmesan cheese halkan waxaan ku haysanaa filfil madow halkan milix iyo halkan waxaan ku haysanaa paprika mise malqacad paprika u baahannahay marka insha Allah isla bilaawno aad yani baradhada aaday degdeg u tahay marka waa inaa qofkii u gashtaa khafazaan waa inuu gashtaa mise gloves baradhadeenaan jijibinaynaa marka baradhadeena ayaan ku dareynaa hadda kaasoo si fiican ay nagu soo burburinay marka hadda mukawanaadka dhan aan ku shubeynaa insha Allah waxaan ku shubeynaa galleydeeni waxaan ku shubeynaa waxaan ku dareynaa basasheeni cagaarka ahayd waraangadeeni waxaan ku dareynaa ku shubay jubnadii parmesanka ku dareynaa cheese-kii oo ahaa fresh cheese-kana waan ku dareynaa jubnadii ah filfishii malqacadda yani malqacad mugeeda ah paprikadiina waa basbaaska macaan oo aanan ahayn kan kulul malqacad mugeeda ah milixana qof kasta suu jecel yahay dad waxay jecel yihiin wax aad u khafiif ah aniga dadkaasaan ka mid ahay marka qof kastaba suu jecel yahay marka kabsar caleenteeni ah oo adiga yani wax yar si qof hadaad jeceshahay kabsar caleenna waa ku badsan kartaa maxaa la yiraahdaa timekeeni mise zactar saa u taqaanid aaday u macaan tahay insha Allah waxaan rajeynayaa inaad soo tijaabin doontaan ilmahana aaday u jecel yihiin marka casariyana waa laga dhigan karaa waxaan isticmaalaya panko la yiraahdaa wadan walbana waa laga helaa haddaad ka heli weydidna waxweeyaan waxaa isticmaalaysaa rooti la qalajiyey guriga ku qalajsan kartaa hadda waa supermarketada yaalaan saxan baan u baahannahay rootigeena aan ku shubano saliideena halkana waxweeyaan dabkaan u shidaya markaa inay kululaato meel dhexe un dabkaa loo dhigo marka
rootigaas waxaweyaan paankada sida rootiga waxaweyaan rootiga la qalajiyey, laakiin kan waxaa isticmaalay indho yar, cadaankana waxay dhahaan bread. waxaan qaadanaynaa adiga saa jeceshahay, ma jeceshahay yani aniga waxaan jeclahay sidaan kubaddan oo kale, sidoo kubad yar dhexda unaya saan uga furaya. insha allah jubnaheena aan gelinaynaa, markaasaan ku xirayaa. aaday dhegdheg u tahay, muscijina u tahay, marka haddaadan gashaneen maxaa la yidhahdaa khafasaanka mise kufuuf waxay aaday u adkaanaysaa. aniga qiyaastaasaan jeclaaday. saxan aan saarno inta saliidda noo kululaanayso iyo inta anaga aan kulligooda aan ku wada sameyna. marka bir yar iska mari si aysan ku gudhin. asxaabteena qaaliga waxaa hadda nooga soo baxday 16 kubadood. marka hadda waxaan marinaynaa rootiga qalalnaa ayaan isku daynaynaa si fiican meel kasta, waayo ukun ma isticmaalayno, waxna keligiisa ku dhagay, waayo bur isaga ayaa maxaa la yidhahdaa dhegdheg ah. marka wax kale ma baahna, ubaahiyo saas loo dhalajiyo. marka insha allah saliideeni ukulna dhexgelinaya. marka insha allah asxaabteyda qaaliga like-ka iyo share-ka iyo subscribe-ka iga iloobina, si aan maxaa la yidhahdaa markasta aan wax usoo dhigo aad u heshaan. like-kana waxay naga caawinaysaa si ay dad badan ay u gaarto. marka kulli saasaan yeelaynaa, aan u karinaynaa, aana laga buuxinin yani wax qiyaasa. yani waxay ku xiran tahay waxa adiga ku karsanaysid, aaladda ku karsanaysa, hadday aalad weyn tahay iyo hadday mid yar tahay. marka aniga waxaa u malaynayaa mar waxa baa ku filan. sumaxda hataa taabanina harabroginana, waayo haddaa rabrogtaan wax weyaan ku jabaya. marka asxaabteyda kuwan dhan aan yani soo wada marinaya rootiga. kii kalena waxaweyaan dabku weli noo saaran yahay, dahabi waa inuu noqdaa. anigana ma rogrogayo, ma taabanin, saan u geliyay ilaa hadda yani ilaa 2 daqiiqadood ayuu sii saaran yahay, maan taabanin. waayo hadday saliidda ka korayso dabkana ay khafiif u tahay, marka dhulka kama gubanayso. saasaan kusoo wadayaa ilaa aan soo dhameeyo. hadda nooca maxaa la yidhahdaa dabka saaran waa kana, noocaasuu noqday. weli waxaan u baahannahay nooca waxyar inuu kasii yani dahabi inuu sii noqdo. marka halkan waxaan saarnay maxaa la yidhahdaa saxan waraaq maxaa la yidhahdaa qardaaskaasna waa ka kor mariya. markaas noocaasaan u baahannahay insha allah inay wada noqdaan kulligooda. asxaabta qaaliga gabagabadii aan soo gaarnay, saan ayay noogu soo baxday. marka aan sila wada fiirina mid insha allah inaan idin maqalsiiyo say korkiisa uu kharmash yahay yani. marka sila wada goyno. waa kaasa cheeskii gudaha uga darnay. maxaa la yidhahdaa waxaan insha allah soo tijaabiya. marka tacliiqaadka igu soo qoraa waxaad yani ma jeclaateen mise maya, haddaa wax ka bedeli laheedeen kulli ila soo wada socodsiiya insha allah. intaa mar kale wada kulmi doono insha allah waxaan idinka tegayaa maca salaama fi amaan illah.